السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذي لهنتين با كلنتي وعن أو ونكسن داوديال وحل سوغا ريح اللي ورد كيني داوديال وحسد توسay nagu daawanaysaan warbaahinta Jeemin ee lanta afka Soomaaliga marka hore si wararka ugu door karoon Ethiopia oo marti gelinaysa isbeddelka cimilada ayaa soo bandhigtay dadaaladooda ku aadan xakamaynta isbeddelka cimilada qaar ka mid ah ganacsatada dawladda deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa ka warbixiyay faa'iidooyinka laga dhaxlay mashruuca horumarinta marinada ee ka socdo magaalada Jigjiga waa hagaag daawadayaal ku soo dhawaada warka iyo wararka loo faahfaahsan haddii alla idmana warkan waxa si toos ah idin kula socodsiin doona anigoo ah Cabdirasaaq Xuseen Fille waa hagaag daawadayaal marka hore aan ku bilaabay Ethiopia oo marti gelinaysa isbeddelka cimilada ayaa soo bandhigtay dadaaladooda ku aadan xakamaynta isbeddelka cimilada waa hagaag daawadayaal hadda si aan u gudubno muuqaalka soo dhameystiran Ethiopia oo wadanka marti gelinaya shirweynaha ku saabsan isbeddelka cimilada ayaa si weyn u muujiyay waxqabadkooda ku aadan la tacaalida isbeddelka hawada Ethiopia oo wadanka marti gelinaya shirweynaha ku saabsan isbeddelka cimilada ayaa si weyn u muujiyay waxqabadkooda ku aadan la tacaalida isbeddelka hawada wasiir dawlaha qorsheynta iyo horumarinta mudane Siyo Makanan ayaa sheegay in Ethiopia si weyn u soo bandhigi doonto natiijooyinka ku aadan dadaalada la xidhiidha ilaalinta deegaanka adeegsiga tamarta iyo howlo kale oo la xidhiidha horumarinta cagaarinta shirkan oo ah kii labaad ee Afrika ee ku saabsan isbeddelka cimilada ayaa dalalka Afrika si weyn ugu soo bandhigi doona natiijooyinka laga gaaray isbeddelka cimilada وهاجك داوديال قار كميدا ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa bogaadiyay mashruuca horumarinta marinada oo ay ku tilmaameen mid wax weyn ka bedelay isu socodka bulshada iyo ganacsiga waa hagaag daawadayaal hadda si aan gudubno muuqaalka soo dhameystiran waxaan ay ganacsada heerkeela aga dhaawayga horta corridor project-igu aad waxyaalo badan oo faa'iidooyin ayuu noo leeyahay ta koobaad wax weeyii bilicdii oo aad u bilic badan noo keenay xaggan magaalada ama aga area-ga talabaadna isku socodka dadka oo isaguna waagii hore iyo hadda difference weyn u dhaxeeya oo aad u wanaagsan yahay maxaan ku raadaa iyo samxadii badneed iyo jaamkii oo yaraaday economically-na aad u wanaagsan yahay oo maxaan ku raadaa waanu soo dhaweynana in xaggaana laga sii wado hawlo badan oo la qabtin way jiraan waxyaalaha maxaan ku raadaa meelaha banaan ee iyaguna dhimanna in iyagana la soo buuxiyo insha Allah on rajeynana maamulka magaalada insha Allah waanu kala shaqeynaa xagga maxaan ku raadaa bilicda magaalada haday noqoto corridor-ka taana waan soo dhaweynaa mashruucan wadada aan ahaantay sidaan u arko mashruucan horta waa mashruuc qaali ah alxamdulillah ilaahayga nasiiban horta ku mahad naqayna marka labaad waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan xukuumadda iyo dawladda fulinaysa ma garanaysaa mashaariicda intan la eg maad aragtay u hortay dalkii hooyo mashruucan waxaan filaynaa in dhaqaale ahaan ganacsi ahaan dalxiis ahaan in uu wax ballaaran kordhin doono haddana wayba ifafaaladeedii iyo saansaanteedii way kasii muuqataa magaalada bilic ahaan iyo maad aragtay ka dhaqaale ahaan مشروعاً هذا بلوده بحيث هاي لاني هذا اللي بلاوي ومشروع أدنى فرح قديم مردمان مش جيوكنول ومشروعاً هو فرح سنة بحيث هاي مقالة بالعددي يولي بجاجتي شام تهيدا هذا كور محمود هاي ماشي لمرة هل ساعة لتاجنانا هي هذا ماشي إمرجنسي بسرعة طبعا على هذا القطاع كنت جيسي مركها أبغى نوصل وين هنا محمود هاي مشروعاً دولة الدجاج في دمان دكتور أبي أحمد أيوة ولان محمود هاي نعمية سواء غرف بنورس أدبر مفرحين كستان أنا قاعد أين نسوق هارينا محمود هاي دبابي جاي كلا وضده مركا عندي واحد حاجة كسر رأيه هبين كستان عند وطاش تجنا مركا صوري وحياة بدنا نقص عن سكيت تاع مركا أدبر محمود هاي فرح بيجي هنا لا مثلا سوق بلارية محمود هاي سيدي هاري اللي قبل بدل أدبر قرفان اسمه سعد كلا جناح سجوا أدبر فرصة ولا محمود هاي بايت هل ودم رئيسي محمود هاي مال المرسي bulshada maxaan ku dhahay hal meel timaado meelkooda qaadis hadda bajaajti way balaaratay meeladu way balaaratay marka ganacsiga kale hadda bajaajyada kale meel kasta way tagaan laamiyi maadaama balaaratay meel kasta way maraan marka sidii hore hal meel iyo hal wada loo ma jiray hadda ma jiraan meel kasta oo istaagto bajaaj oo ka helaysa marka jawiga hore aad uga qurux badan waa hagaag daawadayaal gudoomiyaha degmada Qabri Bayax ayaa ka warbixiyay isku xidhka buundooyinka degmadaasi iyo
mashaariicaha horumarineed ee ka hirgelay degmadaasi waa hagaag daawadayaal mar kale si aan gudubno muuqaalkaas oo dhammaystiran marka la eego caqabadaha kala taagan ee xagga dhaafka ka taagan wadooyinka markaan eegnaa waxaa jira wado laamiga isku xidha 4 degmo xagga naga ah degmada qabdaha qabalayal iyadana qayb ka mid ah qabalayasheeda iyo maamulka magaalada wado isku xidhi jirtay wadada buundada la yiraahdo oo buundada caqabad ay ka jirtay jirto gooneed oo muddo laga soo tacaalay wadadaasi waxyaalaha inta badan adeegyo fara badan bixin jirtay adeegyo badan bay wadadaasi bixinaysay oo qabdaha ilaa shabaab isku xidhisay ahayd degmooyin kale oo ka faa'iideysanayay si Higlooley ay ogaadeen iyo meesha la yiraahdo iyadana Dubaweyn yaa jiray iyadana oo ka faa'iideysan jiray wadada marka caqabad ugu badan waxay ahayd buundadii baa go'day oo tagi baa gooyay toga markii la gooyay in badan baa la yimaado xukuumaddu waaday heer deegaan laga yimaado in badan oo la arkay ahayd marka caqabadooda caqabad iska adag bay ahayd oo miisaaniyad fara badan iyo dakhli fara badan u baahan bay ahayd hadda laakiin bilow fiican baa ka jiray saacadan hadda aan taaganahay bilow fiican baa ka jiray bilow soo aha bal in wadada buundada ilaa iyo intaan wadada caqabada ka istaagnayd tag uu saxna in la bixiyo xafiiskan wakaalada Enterprise-ka yaa hadda gacanta ku hayso oo gaadiidkeedii hadda joogo oo keenay waan soo booqanay iyada oo hadda shaqada ay ka socotaan soo booqanay waxaan rajaynayaa insha Allah toddobaadkan soo socda hadii la yiraahdo adeegii degmooyinka kala xirnaa in insha Allah ay furmi doonaan iyaduna marka hore laakiin caqabad iska taagan bay ahayd oo ilaa heer deegaan caqabad ay ogaayeen bay ahayd dhanka marka laga eego laakiin eega waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo toddobaadkan soo socda ay furmi doonto adeegina hadda si fiican buu socdaa oo hadda waa la wadaa bay ka dhigan tahay waxa caqabadaha taagan bay iyaduna ay kamid ahayd qorshaha marka la eego wadadaas xagga xukuumadda marka la eego dhowr jeer baan la isku yimaaday ahayd oo xafiisyadu ay xukuumadda heer deegaan wasiiro ka socda yaan ku kala halkaas soo nimaanay hadda laakiin qorshaha la qaatay waxa weeyaan kow caqabada horta ugu badan waa biyo baa xiran tugi baa xiran weeyaan tuga xiran ilaa intii loo helo biyahaas meel maraan xal loo helo mooyane inta badan caqabad wax si istaagaya ma aha marka qorshaha waxa la qaatay oo qoladan gacanta ku haysta shirkadda say noo sheegeen qorshaha la soo qaatay waxa weeyaan bal ilaa 2 kiiloomitir oo kamida biyaha hoos in la banaan karo xagga hoose maadaama waag hore taxaa kor laga banaan jiray hadda xal waxa loo arkay markay isku tashi far badan iyo la fiiriyay biyuhu in hoos loo dhaafiyo buundada waxa caqabada ugu badan biyaha weeyaan waxa dhib keenaya marka biyahaas ilaa 2 kiiloomitir oo kamida in hoos loo qodo loo waxeeyo sidoo kale waxa jira iyadana caqabad ah wadadii baa xirantay marka wadadii maadaama xirmisay ciid fara badan baa yaa wadadii fuulay ahayd ciidii lafteeda la qodaya ciidda lafteeda la qaadayo in xal loo helo iyada lafteeda oo meeshii laga soo qaado meel kale la geeyo goob kale yaa iyadana waxyaalaha la qaatay qorshaha la qaatay qorshaha saddexaad la qaatay waxa weeyaan maadaama wadadu xiran tahay oo laamigii la qarsoomay in ciidda laamiga iyadana inta laga dul qaado laamigii laftiisa la baneeyo oo iyadana la waxeeyo buundada marka la buundada hadda ma goono waxa la dul maray tugi ba dul maray ciidii iyo qashankii iyo wixii wadayba kor ka maray wixii marka laga soo qaado hadii la yiraahdo laga qaado iyaduna waxay noqon doontaa in la soo qaado ciidaas iyo qashinka uu keenay tugu in laga soo qaado goob kale oo ku haboon in la keeno hadii la yiraahdo halkaan lagu daayo tugiina uu yimaado haddana waxay noqon doontaa sidoo kale in haddana yeelay ku noqoto dhibka haddana uu sii istaagay ka dhigan tahay marka waxaan rajaynayaa hadda ifaraha muuqda ama qaabka wax loo wado in xal fiican laga gaari doono hadda muddaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo intuu tugu imaanin tugu maadaama uu inta badan kor ilaa iyo faafan uu ka yimaado inta biyaha soo gaarna hadii la yiraahdo xadal baa lagu bixinayaa biyaha inta meesha imaanin in bal xal laga gaaro oo xaqiina la furayo hadda caafiyaad taagan dhowr shaqo qabanayaan shaqooyinka qaban waxa kamid ah qayb wadada ay xaaraysaa oo ciidii bay ka dul qaadaysaa qayb kale tugi bay iyaduna ku dhex jirtaa waxay qaadaysaa tugi bay si furaysaa inay furtay iyaduna qorshe ahaan ay ku jirtaa qayb kale iyaduna waxay qabanaysaa ciidda lafteeda markii laga qaado tugi ee la tuurayada iyo soo qaadaysaa oo meel kale ku haboon iyo keenaysaa oo meeshii soo dhaafinaysaa iyaduna marka insha Allah waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo sanadka 2018 caqabadii sanadka 2017 aan soo aragnay inuu sanadka soo noqon doono hadii la yiraahdo haddana waqti fiican la haysto marka si guud aad baad mahadsantihiin warbixinta guud ee qabdaha intaas aan ku soo koobnaa aad baad mahadsantihiin waa hagaag daawadayaal intaasina waxayna weeg war waxaan idin haynay warkan waxa si toos ah idin kula socodsiinaya anigoo ah Cabdirsaaq Xuseen Fille lacag midiga inta ka kulmi doono kulanka xiga waxaan idin kaga tagay sida nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh